السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إيه ورمسيتهين مفيعنتهين وحارجينا هنا في عنتهين أنا جنا سيدو كل وفي عنها الحمد لله. هلا السود وهذا ما أنت روتين كان الصبح لماذا عرورت 8 ساعة برهبين مقابلة ونايا إلا أي وقت وقدم بيه أنصيح ذو حلي جالس إلا إنتاس وحاقبت أسلا أركينا إن شاء الله. ماشي أنا وحاربة إنهم كسو قلتو صلاة واجبك صلاة صبح كدب أسلا سوق لينا كذا حالة السودة وهذا وأكو فرح سنة هاي سيدة قروح بدنا يديري جلسان هذا فرصتان انتي ugu soo birtin waxaan leeyahay soo dhawaada intii hore ila joogdan waxaan leeyahay ilaahay ha idin sharfo marka halkaan uu kasoo bilaabanayo routiinkeena quraacda xilligan adiga aan jikada soo galay waa 12:40 subaxnimo meeshaana waxaan rabaa inaan saaka quraac fudud soo kariyo xanjeerada waxaan rabaa iridkaas inaan ka bixiyo saaka oo bal jawiga la bedesho marka halkaan waxaan ku soo shubtay 2 koob oo bur ah iyo waxaan ku soo darsaday 2 qaadi bar oo sonkor ah iyo 2 qaado caano boore ah waxaan kaloo ku soo darayaa qolfo shiidan oo qaadada afkiisa ah marka intaasaan si fiican isku soo dhaxgelinayaa marka intaan mashiinta soo qaadanin meeshaasaan dhasteer iska soo marinayaa kadib waxaan soo qaadanayaa mashiintii aan ku shiidi lahaa marka waxa ka sii fiicnaan lahayd bahasha oo saas loogu walaaq maxaa la dhahaa Soomaali laakiin way iga jabtay ma haysanin marka mashiintan ku soo shubtay oo mashiinta rabaa inay isugu keyso shiido ay si fiican ku soo baxdo marka lama rabo inaad zaaidna u adkayso zaaidna inaad u jilciso lama rabo waxaa la rabaa in maxaa la dhahayo meel yar oo qiyaas aad geysid hadhowna marka dab ku shubtay soo kaaga jilcin marka waa kana hadda mashiintii haddana meesha ka soo qaadaya wax walba la iska sii fududeeyaa intii ku dhow yihiin la iska sii fududeeyaa markaas adigana hadhow shaqada way ku fududaanaysaa kadib meeshaan aan baaquliga soo qaatay waa kana waxaan rabaa inaan ku soo shubto burki sidaas uu yahay aadna uma jilicsana aadna uma adko meeshaan waxaan rabaa saaka inaan pancake ka soo tuurano waa kana midkii ugu horeeyaan bisinka soo qabtay oo dabka soo saaray sidaan quruxda badan oo ku soo baxay ma sha Allah zaaid u jilicsan yahay marka ukun dhan kuma darin haday ii taal waa ku darsan lahaa oo markii hore aan karsan jiray ukun aan ku darsan jiray laakiin saaka ukun iima oolin marka waxaa iri bal caano booro bis ku dar siday ku soo baxday aragtid marka caanaha inay qalalan yihiin bis ma ayagoo dareera xataa waa isticmaali kartaa inuu ukunba ay wax kala maqan yihiin moodid ma sha Allah tabarakallah zaaid u jilicsan yahay u qurxan yahay marka sidaana ku soo wadayna processkan saaka quraacdeena waa tanaa aad baa looga helay ilmaha waliba zaaid ay u jecel yihiin quraacda sidaan oo kale ah waxaa fiican isbuuci in hal mar ama 2 mar oo kale wax fiican oo qurxan ilmaha loo kariyo ayagana ay ku farxaan si fiican way kugu cunayaan marka maxaa la dhahayo sidaan ku soo wadeena ilaa iyo dhamaadka kadib isla arkeena waxa xigo oo soo sameyn doona insha Allah marka halkaana waxaan ku dhahay cidi dhan la soo wada jafay dugsiga la aadaya waxaa fiican ilmaha intaadan dugsiga u dirin in saacad ka hor ay kicisid si maxaa la dhahayo ayagoo fresh u baxaan marka waa la soo joodaa wallahi inaan lagu jira meeshan quraacda la sugaa marka waxaan rabaa waxna inaan quraac uga dhigo waxna inaan ugu rido baaga ay u qaataan maxaa la dhahayo dugsiga marka hadda pancake waa soo dhameeyay meeshaan aan baaquligaas aan biyo ku soo shubtay iyo qal yar waxaan rabaa inaan strawberry iyo blueberry ku soo dhaqdo oo si fiican u soo dhaqo waa kana hadda anigoo soo furayo sidaas quruxda badan uu eegyahay cabaar fridge-ka igu jiray laakiin maxaan dhahayo isma bedelin marka baaquligaan ku soo shubanaya baaquligan biyo iyo waxa ku jira khal hadana waxaan kaloo ku soo dareynaa blueberry-ga waxaan rabaa inaan si fiican u soo dhaqo khalka markaan ku dhaqano kadib hadana waxaan ku celinayaa tuubada mar kale aan soo dhaqayaa qudaarta si fiican isaga dhaqaa fiican nooc walba tahay marka biyaha wax yar u deenayaa markaan saan dhaxdhaho markay biyaha cabaar ku jiraan hadana waan soo qaadayaa waxaan ka soo fujinayaa bahashaas kulli aan ka soo wada fujinayaa kadib aan maxaa la dhahaa hadana soo dhaqayaa marka waa quraac heer sare ah oo healthy ah ma sha Allah ilmahana zaaid ay u jecel yihiin mar hadii loogu tuuro kaaliska arag halkaas subaxiisaha si fiican ay kugu cunayaan hadaa baag ugu ridaysid iyo hadaa quraac uga dhigaysid marka saaka quraacdan quraac waxay ahayd familka dhan ay cunayeen ma sha Allah marka sidaan ku soo wadeena kadib markaan saan ku soo dhameeno baa waxaan sameynayaa baaquligaas yar oo cadan ku soo shubayaa markaan ku soo rido tuubadan hadana ku celinayaa si fiican u soo dhaqayaa
kadib baan waxaan diyaarinayaa inaan qof walbo quraacdiisa u diyaariyo oo meesha lagu kala yaaco insha Allah. marka waa kana hadda waan soo dhaqay tuubadan si fiican ugu soo dhaqay meeshaana saxankayga soo diyaarsaday. hadda markaan waaba soo qeybiyo cuntada inta u badneed meeshaan rabaa inaan maxaan dhahayo dugsiga aada ayagana soo siiyo. meeshaan marka marka pancake qasay sonkorta kama badinin marka waxaan rabay inaan pancake syrup-kana rabina u isticmaalo. kadib waxaan soo qaadanayaa strawberry dhinac kastaan uga soo saarayaa blueberry asagana sidoo kale u soo saarayaa maasha Allah. waxaan leeyahay quraacdiina cuna hal isbuubsi waqti ma harine. kadib haddana saxan kale aan soo qaaday haddana waan soo saaray midkaan waxaan rabaa inaan ugu rido maxaa la dhahayo weelkii cuntada loogu ridaayay oo dugsiga lagu aadayo ama iskuulka. marka sidaan 4 caada usoo jarjaraya 3 xabo waayo sidaan ugu soo saaraya ani dib baa isku qabnaa cuntadan baaga waa isaga ridaa ma ogi wax soo cuna ma lahan inta ugu badan ayadoo sideedii hal isoo celiya ama ayadoo wax yar laga soo taabtay yaab waxaan dhameesh kuma bagaajotin miya maxaa khaldan. marka waa kana hadda strawberry iyo blueberry aan soo saaraya maxaa la dhahayo ayadoo waxa la ii keenay strawberry iyo blueberry bisa la soo cuno la soo taabanin pancake ka sheekeeya. kadib meeshaana waxaan kusoo shubanayaa sida caadadeena aan liin macaan subax kasta u miiraa liin macaan soo miiro maxaa la dhahayo caaga ugu soo shubay. waa kana hadda quraacdiisi waa diyaar si fiican aan ugu soo dhudhuujinayaa si maxaa la dhahayo hadhow baaga uga daadanin. kadib meesha markaan quraacdiisa usoo diyaariyo meesha waa lasoo wada quraacda xaafada dhan waa lasoo jeedaa yar iyo weyn qof furdo ma lahan. xilligan hadda adiga waa 12:15 meeshaan aan rabaa inaan wado dugsigiisi hadda waan geeyay waan kasoo laabtay meeshaan aniga waxaan soo aaday socod. waxa aan ku tashto waxaa waaye subax markaan dugsiga geeyo inaan aniga socod aado ugu yaraan 40 daqiiqo ilaa iyo 1 saac. hadda subaxdan roob ay saak waxaan ku dhahay maasha Allah jawiga dhan macaan xilliga adiga waa 1 saac camal 40 daqiiqo waan soo socday kadib waan soo laabtay waxaan ku dhahay hadaa caajis iyo hurdo dareemaysa markaad soo socodsa hadaad xala seexan hataa waxaa noqonaysaa fresh hadaa hooyo taana saasa kuu fiican sida habeenkii hurdo fiican u hesho inkastoo hadiiba hooyo leeyahay adagta in 8 saacadood la seexdo laakiin maalinta la seexanayo habeenkaaday ka jaran tahay. kadib markaan hadda waan soo laabtay waatana aniga quraacdeeda iyo Greek yogurt ama isku soo diyaarsaday. kadib meeshaan markaan cabaan meelaha soo tagtagnaa 3 saac subaxnimo waa xilligan gabadhii caawinaysa imaaday maadaama sabtina ay iga maqneed axadna maba imaadaan cidaan maanta shaqada waa culus tahay fadhiga waxaa waaye kal iyo laab in loo hagaajiyo labadii maalin oo la maqnaa in waxaa waayaan ku dhahay laga soo keeno. kadib waa kana hadda kuraastii waxaa ka wada qaaday salki way soo wada jafaysaa hadda midkii weynaa wakaas way ku celisay haddana waxay u soo laabanaysaa labadan kursi oo kale oo yaryar ayagana sidaas oo kale way soo jafaysaa maasha Allah. maadaama guriga ilmo joogaan kuraastan ay kuraas cadcad yihiin zaaid in looga taxadaro waa oo markasto laga warhaayo. marka waa kana hadda roogii soo xaaqday roogii meesha soo qaadaysaa rooga anaga subax walba waa la bixiyaa maadaama xaafadana ilmo joogaan haddana kuraas iyo waxba kuma hoos jiro oo kaligiisa meesha iska yaala marka way fududahay in subax kasta la bixiyo si maxaa la dhahayo 4 gees oo kuraasta loo xaaqo loo tirtiro. kadib waa kana hadda saan u soo xaaqaysaa kadib way soo tirtirtay hadda sidaan uu soo baxay daaqadan u furan leer macaan rabaa inuu soo qaato. kadib meeshaan haddana qolkii ilmaha isla soo galnay qolkii meeshaan gooyaasha laga soo bedelay anaga gooyaasha labada maalin ama maalin kasto waa la bedelaa maasha Allah. waa kana hadda gooyaashaan ku soo gelisay 2 go oo isku eg marka waxaan rabaa inay sariirahaas tirtirto daaqadaha tirtirto maasha Allah. marka hadda waa kuwan sariirihii soo riixday gaariga soostooda ku jiray kasoo bixinaysa sariiraha meeshaan maalin dhaafa loo soo riixaa. kadib waa kana hadda xilligan adiga waa 7 saac iyo bar qolkii waxaan kusoo shidayaa luubaan daaqadana way noo furan tahay maasha Allah sidaan quruxda badan uu kusoo baxay. waxaan rabaa inaan soo seexiyo intay ay jiifaan anigana aan waqti yar oo me time qaato hurdo ima taalo waxaan go'aansaday inaan iska daayo hurdada lagu laabanayo si kasta ii heeso si aan habeenkii hurdo fiican oo macaan u seexdo. marka meeshaan aan rabaa inaan aniga kaliya jawi iska soo qaato waxa akhrisan kara akhristo waxa dhageysan kara dhageysto maasha Allah. kadib hadda ilmihii markaan soo seexiyay kadib meeshaan jikada soo galay waxaa arkay maaskayga inuu iga dhamaaday face maskan zaaid aan u jeclahay muddo dheer isticmaalaya
meeshaan waxaan kusoo shubtay 2 qaado huruud ah. waxaan kaloo kusoo darsanayaa iyadana 2 qaado maxaan dhahayo kafee ah. waxaan ku dhahay maaskan maasha Allah fridge-ka la gashanay weel af u daboolan inta ku xiratid wuxuu ku heynaa 2 isbuuc camal. kadib marka hadda uu saan yahay si fiican isku soo dhaxgelinayaa. markaas waxaan sameynayaa waxaan kusoo darayaa ukun qaybta shaharka waan soo daadiyay qaybta waxaa waa qaybta jaalaha bas ah aan kusoo darayaa. waxaan kaloo kusoo darayaa saliid hadaa dry skin ana camal saliida ku darsanaya laakiin hadaa oily tahay saliid uma baahnid. kadib waxaan kaloo kusoo darsanayaa rose water. hadaa rose water haysanin biyo caadi ah isticmaali kartaa dib malahan. saliid aan hadda waxaan isticmaalay olive oil marka hadda camera duubay olive oil igama ag dhaweyn marka kuma soo darin. olive oil yar aan kusoo darsaday weel yar la dhab ku siistay isbuuci 2 jeer camal wajiga marsanay kaal iska arag. kadib markaan wajiga soo marsay waqtigeyga soo qaatay diracani gabsaarkan aan soo baxsaday baalkaas aan uun siyar kusoo shubtay oo korontada isticmaalayso. alxamdulillah markaas kadib aan fadhigeyga imaaday uun siyaraan soo shitay. meeshaana waxaan rabaa ku dhahay inaan kiligay fadhiga cabaar iska fadhiyo qisaan dhageysanayo sooda qaaliba kala barka ii mareysay oo xala ka tagay midiyaan erbal iska dhameysatid inta meeshan kaliya fadhidid. meeshan waxa igu jira timir waxaas kale waxa waay fennel seed ama shamaar hadaa diet ku jirto iscaateynaysa waa isticmaali kartaa wuu ku caawinayaa. hadaa hooyo taho naas nuujin ku jirtid sidoo kale wuu ku caawinayaa caano ku yeelaya fiican. aniga marka labada qayb waa u isticmaalay maasha Allah. kadib meesha ilmihi hadda way soo kaceen cabitaankan aan usoo shiiday xilliga adiga waa 10 saac iyo rumi camal cabitaankoodan soo siiyay. kadib meeshaan jikadeeda kusoo laabtay fadhi ma yaalo waa maya cashadeeda waxaan rabaa aniga inay diyaar ahaato maqribkiiba ma rabo inaan jikadaas isku galo. waxaan jeclahay in maqribkii ka hor aan jikada kasoo dhamaado oo wax shaqo ku oolin. hadaa ilmaha waqti la qaadanaysid hadaa wax kala qabsanaysid way ku fududaanay laakiin bacda maqribkii in la galo wax sahlan maahan. marka waxaan rabaa dadkan maadaama ay soo kaceen 10 saac meeshii lagu gaaro cishahaba inay seexdaan insha Allah. marka meeshaan hadda waxaan soo jarjartay bocor jab ahaan soo jarjartay. waxaan rabaa meesha inaan baasta dhaadheer soo kariyo bocorka sida siriiriska u soo jarjaray. kadib meeshaan waxaan kala soo qaatay kaarood xabad weyn ah oo u dhiganta 2 xabo waa soo fiiqayaa. markaan saas u soo fiiqo ayadana waan soo jarjarayaa. marka waxaan rabaa bocorka iyo kaaroodka iyo barandhadaba inay noqdaan maxaa la dhahayo size yariiriisa inay isku size noqdaan rabaa. marka waxa karinaysid isku size u jarjarsid cuntada xataa qurux noqonay ish ka qurxanaanaysa waa kana isku size rabaa inaan soo jarjaro bocorka barandhadi waa tan basal isheeg kaaroodka waa kana waan soo jarjartay. haddana waxaan soo qaadanayaa barandhadaas dhowrka xabaan soo qaatay ayadana waan soo wada fiiqayaa. marka si fiican u soo wada fiiqo oo soo dhaqdo ayagana qiyaas ahaan waxaan la soo ekeysiinayaa bocorka iyo barandhada intee la ekaayeen bocorka iyo kaaroodka waa kana. marka processkii aan kusoo wadnaa maraqan aan hadda rabo inaan kariyo ama suugadaan wax hilib ah inaan ku daro marabo. waxaan rabaa suugo yar oo rasiin ah oo maxaa la dhahayo baastada lagu cuni karo markii la kariyana aan la tabeyn in hilib lagu daray in kalo inaan meeshan soo kariyaa rabaa. labadaas basal oo kala nooc ahaan waan kusoo darsanaya waa kan hadda aan soo dhaqday. kadib dabkan soo shitay meeshaan aan basashi iyo saliid yar aan dabka kusoo shubay. kadib waxaan kusoo darsaday yaanyadii waxaan rabaa inaan isku soo riiqo sida caadigeeda xabad muuqanin si fiican isku soo dhaxgelinayaa. kadib markii hadda saan diyaar u noqoto waxaan soo qaadanayaa yaanyo shishiid xoogaha yar aan kusoo darayo kulli kuma wada darayo. markasta yaanyo shishiidka isticmaalayo bar baan reebaa bar baan ku darsadaa ma jeceli inay iga badato. marka hadda sidaan waa diyaar. kadib meeshaan waxaan soo qaadanaynaa daaniyadan hadda tii 2 caag oo noocan aan ku shubtay maanta shiiday firiiska gelinay kii hore wuu dhamaaday kii labaad hadda soo bixiyay waa kana hadda bisin ku qabanayaa 2 qaad camal uga soo darsanayaa. kadib si fiican isku soo dhaxgelinayaa. markaan si fiican isku soo dhaxgeliyo waxaan soo qaadanayaa garam masala waxaan kaloo kusoo darayaa iyadana huruud ama turmeric kuma badinayo. si fiican markaan isku soo dhaxgeliyo adiga waxaa heli kartid ku darsan kartaa hadaa rabin waa iska din kartaa. waxaan kaloo kusoo darayaa soya sauce kuma badinayo soya sauce-ka asagana xoogaha yar oo qiyaas ahaan kusoo darayaa. si fiican isku soo dhaxgelinayaa maasha Allah waa diyaar haddan. markaas waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa barandhadii iyo bocorkii
iyo kaaroodkii waka isku size usoo jarjaray ayagana biyahan ka miiraya biyaha inay ku darsamaan ma rabo sidaasaan usoo wada waan ku soo wada darayaa kadib markaan saan yeelo waxaan ku soo darayaa biyo yar biyaha kama badinayo xoogaa yar aan ku soo darayaa waa isku daboolayaa biyo damban in lagu dar lama rabo in barandhada iyo bocorka iyo kaaroodka inay jajabaan lama rabo ayagoo sidaas u tagtaagan inay si jilicsan u karaan suugo rasiin oo maasha allahna ay kusoo baxdo marka waa isku soo laabaneynaa insha allah si ay kusoo baxdo waa isla arkeynaa kadib waa kana cashadeena sidaan ay kusoo baxday haddadaan waabo 12:40 waaye meeshaana ilmaha casho soo sii rabaa sidaasay kusoo baxday rasiinkaas hilib inuu ka maqan yahay yaa tabayahe sidaasay kusoo baxday maasha allah kadib markay saas noqotay waxaan sameynayaa ilmaha xilligan waan soo seexiyay cishaaba lagu jiraa xilligan qolka ilmaha waxaa saaran masaajidka marka hadda videogan duubay waxaa maqlayay salaada cisho lagu jiro kadib jikadeedii aan kusoo laabtay waan soo hagaajiyay wixii kala hadlaysnaa dhan jika casho lagu kariyo waa dareemi kartaan meeshaas waxaan kusoo diyaarsaday fennel seedkeyga meeshaana dhuxul kusoo shidi rabaa uunsiyaa rabaa inaan kusoo shido fadhiga iyo jikada waa kana markaad uunsigu noo soo shidmay meeshaana maxaan dhahayo fadhigan kasoo bilaabay xilligan xaafada ilmihii way seexdeen meeshaana quraan soo shiday aniga alxamdulilah habeenkii meeshii lagu kala seexdo quraanaan shidaa adiga soconaya 12 saacadood ilaa iyo subaxi dambe uu shidnaanaya madamaayo marka jikadan waa kana hadda aan uunsigay kasoo shiday alxamdulilah marka sidaana isku ognahay in nabadgeliyo like iyo comment iyo subscribe yana gali iloobin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fi amaanillah bye bye